waayi halkan oo bariga magaalada Hargeysa waxaan hadda kula kulmay xogayaha arrimaha gudaha xisbiga mucaaradka ee wadani xogaya waxaad sheegtay in dhibaatooyin la soo gaarsiiyay taageerayaashii iyo waliba maanta soo dhaweytanba walaalinta nooga war deertooyin la socodnayo ilaa xalay ilaa saaka sidii dadku waa ugu bariyay waxay dadkan u soo baxeen waxa weeye kalgacal ay u qabaan musharaxooda iyo gudoomiyaha xisbiga wadani inay soo dhaweeyaan xaqna way u leeyihiin waana rabitaan shacab ما ها ربطان شخص كاسا كاس حلو واحد عينه ده بولسك dadna la xirxiray qaarna baawurti laga jijibiyay waxa ku tuusay waxa arka saayimka waxa bools meesha marayo tuwan amaanka dalka la ilaaliyo anaga ka soo jeeda anaga rabna anaga ilaalina dadkan waa dadkii dalka lahaay ma hadda China ku soo duulay lixda shad safarta gobolka bariga soo mareen meenaan arag meel bools lagu soo saaray meel lagu yiri halgeys su'aasha Suudiinta waxay tahay halgeys waxay kaga duwantay waxaan ciidan loo soo saaray laakiin mudaharaad baa jira waxa jira soo dhaweyn baa jirta waxay ka xun yihiin ummadda inta laga isku timiday waxay doonayaan inay khalkhal galiyaan oo dadka si ay u kala dareeraan inay iyagu isku ku abaan hadii ciidanku ay yiraahdaan ammaanka meeshaan sugayna waxa ku jaban ammaanka walaal isku haynaa laakiin inuu baabur la jijibay maxaq baa dadka hadii ay ilaalinayaan halka istaagaan weeyaan inay kolba baabur xagga loo jirsiyaan xagga loo jirsiyaan sidii waxda argagaxgelin oo kala inuu sameeyay xaq looguma laha waxa weeyaan kulmiye wuxuu ku sii marmoosay wuxuu marayaa wadadii u dambeysay exit lorkii uu taagay maanta uu baxaya maadaama baxay galgalasho fara badan rutusi sameynayaan xukuumadda waqtigeedu waa gabagabo waxa la wada soconaa shacabka Soomaaliyeed inay maanta noo raadinayaan inay cadaalad raadinayaan xukuumaddu waa gabagabo waa tirey ma laba sano guurtidu ugu daray anagu xisbahaana laba sano guurti anagu sharciga martay ma hayo anagu waqtigiisii mandate-kii ummaddu doortay dastuuriga ahaa waxa weeyaan 13 November ayuu ku eegay kaasi shacabka Soomaaliland wadana soo geel maanta wala arkaya ee barigana looga soo dhaweeyay galbeedna looga soo dhaweeyay hargeysana maanta aanu taaganay iyagana in maqaayadaha xataa markay istaagaan qolada kulmiyeed inuu israacday isla meereysanaysay in looga dareeno maqaayadaha wadalkiisa taas waxa ku tusaysaa calaamada ah in maanta shacabka Soomaaliland meel kastuu joogo kulmiye aanu rabin mas'uuliyadda kulmiye sheegayso ayadoo la soo dhaweynayaan oo arkaynay maqaaxida loo kacay halkee waxa la yiraahdo soo dhaweysay inta soo dhaweysay waxa intii la dabar garaacay ee shaqaalaha dawladda aha ee isku duwayaasha aha ee loogu hanjabay mushaarka laga jarayo ayaa kulmiye soo dhaweeyay gobolada qaar ee arkaysan agaasimayaal hor cararayaba ceeb iyo lafjab fuuxuma ay qaranka ku tahay in agaasimay oo hor cararo xisbi ceeb bay ummadda ku tahay marka taasi ku duwaya ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodka khidmad la'aanta ee Tree oo ku sahlaya in 3 jeer ugu horeeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed